kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta. Saaxiibayaal, muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay xikmadda iyo caqli badnaanta. Xikmaddu wax xidhiidh ah lama laha qofka da'diisa. Waxaad la kulmi kartaa qof ka weyn in badan oo aan wax xikmad ah lahayn, isla markaana haddii aad talo ka qaadato ku marin habaabin kara. Waxaanad sidoo kale la kulmi kartaa qof adiga da' ahaan kaa yar oo xikmad iyo caqli badan isla markaana ku caawin kara. Haddii aynaan ku darin caqli iyo xikmad, ficiladeennu waxay noqon lahaayeen qaar ku salaysan oo keliya damiceenna. Waxaynu raaci lahayn dareenkeenna innaga oo aan eegayn natiijada xun ee ka dhalanaysa ama dhibaatooyinka soo gaadhi kara nafaheenna iyo nafaha kaleba. Hal eray oo xikmad ah oo aad ka hesho qof xikmad badan ayaa kaaga faa'iido badnaan kara khibrad kugu qaadata inaad hesho dhowr sano oo noloshaada ah. Hal eray oo aynu ka qaadanay qof bilaa xikmad ahina waxay nagu hoggaamin kartaa inaynu qaadanno go'aan aynu mar dambe nolosheenna ka qoomamayno. Haddii ay jirto waxaynu si dhaba ugu baahannahay si aynu ugu noolaano nolol fiican oo farxad leh, taasi waa xikmadda iyo caqli badnaanta. Haddaba halkan waxaan kugula wadaagi doonaa 5 tallaabo oo aad ku noqon karto qof xikmad iyo caqli badan. Weligaa go'aan degdeg ah ha qaadan. Mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee xikmaddu waa inaanad si degdeg ah go'aan u qaadan. Tusaale ahaan, haddii aad 2 cisho gudahood ugu jawaabayso qofkaa codsaday inaad u shaqayso, waa inaad u jawaabtaa oo keliya maalinta labaad, xataa haddaad horeba u garanayso waxa aad doonayso. Haddii aad rabto fariin muhiim ah inaad u dirto qof saamayn kara noloshaada, qor oo diyaari warqadda ah, balse hore ha u dirin. Dhowr daqiiqo kadib waxaad arki doontaa fikrado cusub oo ku soo dhacaya maskaxdaada, kuwaasoo kaa caawin kara fariin muhiim ah inaad dirto. Haddii aad rabto inaad ficil samayso, inta aanad ficilka samayn, ogow xogta kaa maqan ee ay muhiimka tahay inaad hesho si ficilkaaga iyo waxqabadkaagu u noqdo mid aad u wanaagsan. Isku day inaad ogaato waxyaabaha qaar sababaha ka dambeeya. Qofka mar kasta dadka si cadho leh ugu qayliya waxaa laga yaabaa inay haysato dhibaato xagga nolosha ah oo uu xallin kari laayahay. Qofka mar kasta ku xaasida waxaa laga yaabaa inuu dareemayo hoosayn iyo inaad wax kaga fiican tahay. Si aad u noqoto qof xikmad iyo caqli badan, waa inaad heshaa aqoon kugu filan oo kuu fududaynaysa inaad ogaato sababaha ka dambeeya dabeecadaha iyo habdhaqanka qofka. Inaad barato aqoonta noocanahi waxay keenaysaa inaad samayso ficil ka duwan ficilkaad samayn lahayd haddii aanad barateen. Wax akhri oo noloshaada ku dabaq waxaad baratay. Haddii aad wax badan akhrido adiga oo aan ficil ahaan u samaynayn, waxaad noqon doontaa qof wax akhriska uun iska jecel. Haddii aad ficil la samayso adoon aqoon u lahayn, waxaad noqon doontaa qof jaahil ah. Balse haddii aad wax badan akhrido isla markaana aad isticmaasho waxyaabihii aad akhriday, waxaad noqon doontaa qof aad u caqli iyo xikmad badan, wax badanna og. Xikmaddu waxay ka kooban tahay aqoon iyo khibrad nololeed, labadabana waa loo baahan yahay. Haddii aad rabto inaad noqoto qof caqli iyo xikmad badan, talada ugu fiican ee aan ku siinayaa waxay tahay akhri wax badan, isla mar ahaantaana u isticmaal noloshaada wixii aad akhriday. Wax indhe ma aha inaad isku qaaddo si indhala-aan ahna aad u gasho waxyaabaha qaar si aad u ogaato khatartooda iyo faa'iidadooda. Sababtoo ah waxaad samayn kartaa inaad indha-indhayn iyo xog ururin ku samayso waxa aad rabto inaad bilowdo. Haddii aqoontaada iyo waayo-aragnimadaadu kaa dhigayso qof caqli badan, khibradda dadka kale oo aad barataana waxay kaa dhigaysaa qof aad u caqli badan. Maamuusa Media waa meel aad ka heli doonto talooyin waxtar leh oo si weyn u anfici doono noloshaada. Subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada kala duwan ee aan soo geliyo. Sidoo kalena la wadaag asxaabtaada aad is leedahay waa anfici doonaa channelkani.